waxa uu ahaa dagaalyahan hore oo jabhad ah ciidamada dalka Itoobiya ka jiray isgaarsiinta Debretsion Gebremichael haatan wuxuu horseed ka yahay dagaalka laga soo horjeedo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ay ku dirirayaan gacan ku haynta gobolka waqooyi ee Tegria oo lagu tilmaamay inuu yahay ubuucda dalka Itoobiya. Debretsion waa hogaamiyaha xisbiga Tegria Debretsion Front oo loo soo gaabiyo Tplf ee ka taliya gobolka Tegria kaas oo si lama filaan isu sheegeen Abiy Ahmed isaga oo markaas uu guursaday oo ilmo yar dhalay ayaa Debretsion uu ka tagay waxbarashadiisii jaamacadda Addis Ababa sanadkii 1970-aadkii waxaana ku biiray Tplf si uu uga qayb galo dagaalkii 17 sanadood socday ee ururku kula jiray xukunkii dhargiga ee uu hogaaminayay Mengistu Haile Mariam wuxuu wasiir ka noqday xukuumadda markii talada laga tuuray dargigii xukunka ayaana qabteen isbahaysi xisbiyada Tplf ee awoodda ugu badan ku lahayd dalka Itoobiya wixii ka horeeyay sanadkii 2018 oo talada dalka Itoobiya la wareegay Abiy Ahmed saaxiibkii oo ay isku dhow yihiin jaalna ahaayeen oo la yiraahdo Alamanyo Yasahan ayaa sheegay in markii labadooduba ay tababar military ku dhameysteen dhulka buurleyda ee Tegria uu ogaaday kartida farsamo ee saaxiibkii oo isna kula taliyay Tplf in Debretsion lagu daro ururka farsamada. Alamanyo waxay leedahay arrin maangal ah in Debretsion lagu daro ururkaasi maadaama uu ahaa qof maskax badan laakiin afgaaban ciyaal magaalana ah kuna kaca meeshire oo haatan ay guul darro weyn ka soo gaadhay hogaamiyaha Tegria maadaama ciidamada federaalku gacanta ku dhigeen magaaladaasi sida ay baahisay BBC waxa uu ka dhashay qoys Masiixiyiinta Ortodokska waxaana loo bixiyay Debretsion oo macnaheedu yahay buurta Sion. markii dugsiga hoose uu ku jiray wuxuu soo uruursan jiray baytariyada la daadiyo raadiyoyada iyo qalabka elektarooniga ah ee la tuuro markaasi ayuu hagaajin jiray iyada oo aan magaalada leyd lahayn ayuu gurigooda u sameeyay leyd koronto ku shaqeeya ayuu yiri Alamanyo. Debretsion wuxuu ka soo dhalaalay qaybtiisii farsamada ee Tplf ee lagu daray waxaanu door muhiim ah ka ciyaaray dhismaha awoodda sirdoonka Tplf ee dhageysiga qalabka isgaarsiinta ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale in la jaro isgaarsiintooda taarka. arrintaasi waxay noo sahashay in aan guuleysano sababtoo ah dagaalyahanada xorriyadda oo dirarka Tplf waxay war ka heli jireen dhaqdhaqaaqa ciidamada Itoobiya intaan hawlgalkaba bilaabin marka aanu taarkooda isgaarsiinta jarnana ma wada xiriiri kari jirin marka weerarada lagu qaado ayuu yiri Alamanyo. si uu xirfadiisa u sii kobeeyo Debretsion wuxuu Talyaaniga ku tagay baasaboor forgery markuu soo noqdayna wuxuu dhisay idaacaddii ugu horeysay ee Tplf yeelato oo la yiraahdo Debretsion oo macnaheedu yahay codka kacaanka. nin kale oo ka tirsan dagaalyahanadii Tplf oo la yiraahdo Gebremichael ayaa isna xasuusan sida habeenkii ay buuraha fuuli jireen marka ay ogaadaan in aanay basaasiinta dawladdu arkayn si ay buuraha dushooda uga soo rakibaan anteenooyin. haatan idaacadda Debretsion waxay qayb ka tahay warbaahinta afafka badan ku hadasha ee xarunteedu tahay magaala madaxda Tegria ee Mekelle waxaana baahisay warbixinta ay Tplf ka soo saartay iska horimaadka military ee dhexmaraya dawladda federaalka ah. idaacaddaas waxay tan iyo intii colaaduhu bilaabantay baahinaysay faallooyin aad u dhaliilaya Abiy. mawjadaha idaacaddaas ee ka hadasho ayaa la xidhay laakiin Debretsion maalin kadib hawada ayay ku soo noqotay. si kastaba haatee xudunta khilaafka labada hogaamiye ee dawladda federaalka Abiy Ahmed iyo Debretsionka Tegria ayaa soo bilaabantay markii uu talada dalkaasi loo dhaariyay ra'iisul wasaaraha waqtigan Abiy Ahmed Cali. dagaalkan cusub ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo ismaamulka Tegria oo galaaftay nolosha dad badan tiro ku dhow 30,000 oo qofna ay ku barakaceen ayaan la sii saadaalin karin halka uu saldhigan doono.